hal mar hadduu diinta caayo ama allah caayo ama rasuulka caayo ama malaa'igta caayo diinta waa ka baxay. mise jeer baad aragtiyadu kubadda ciyaarayo dhalinyaro diinta caayaysa rasuulkana caayaysa mise jeer baad aragtay adoo restaurant cunto ka cunaayo dhalinyaro diinta caayaysa. Soomaaliya waxaan la ilmeynaya ilinta iga keenay raganimo xumi ma ah shakhsiga bini aadanka markii diintiisa laga soo galo wax ka xun ma jirto. waayahay laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah. arrinta walaalkeen Bashiir Jaaw inaan ka hadlaan rabaa laakiin intaanan isaga ka hadlin waan u soo laaban doonaa isaga waxyaabo badan aan ka dhihi doonaa waxaan rabaa adigaagan daawan inaan kula hadlo oo su'aal ku weydiiyo fiidiyogan bad yara daawani fiidiyogan kadibna su'aashan aan ku weydiinayo ayaan jeclaan lahaa inaad comment igu soo qortid adoo Ilaahay ka cabsanayo waliba. maalin kasta inuu caayo iska daayay hal mar hadduu caayo diinta waa ka baxay. hal mar hadduu diinta caayo ama allah caayo ama rasuulka caayo ama malaa'igta caayo diinta waa ka baxay. qofku hal mar maaha ku celcelis maaha hal mar hadduu diinta caayo rasuulka caayo ama malaa'igta caayo diinta waa ka baxay buu sheekhu dhahay. marka su'aashan ku weydiinay waxa weeyaan dadka caanka aan u soo laabanay imise jeer baad maqashay dad isdagaalaya oo diinta caayaya qof tusaale ahaan lagu leeyahay garac oo ku jawaabay diintaada waxaas iyo waxa ku samee imise jeer baad aragtiyadu kubadda ciyaarayo dhalinyaro diinta caayaysa rasuulkana caayaysa imise jeer baad aragtay adoo restaurant cunto ka cunaayo dhalinyaro diinta caayaysa dhalinyaro Ilaahay caayaysa dhalinyaro rasuulka caayaysa. soo marka waxaan rabaa adiga ayna daawanay inaad ii sheegtid inaad waxa aragtay yeen kale comment ay ugu soo qori doontaa haday jawaabtaadu haa tahay taa macnaheedu waxa weeyaan dad badan baa diinta ka baxay oo u baahan in loo nasteexeeyo oo mar labaad ku soo laabtaan taan waa isquraacsanna u maleynaa. Bashiir Jaaw oo soo laabanna wiilkaas Nairobi baan wada joognay aqoon baan u leeyahay wiil degan aan dhacdac badnayn daniisa yaqaana iska afgaaban ayuu ahaa qalad uu sameeyay. Soomaaliya waxaan la ilmeynaya ilinta iga keenay raganimo xumi ma aha inaan jilcsanahay ma aha shakhsiga bini aadanka markii diintiisa laga soo galo wax ka xun ma jirto. waayahay laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah. salaad baan ku siinayaa aruurta yar yar ka maaragtay ee bahaayinka ay waxba kala garaneyn marka ay meel xun u socdaan oo macnaha dab gacanta la galayaan ama wax ay soo daadinayaan sababta saa loogu yar dhufto ma garanaysaa gacantooda iyagoo bahaayin waxba kala garanayaan laakiin still waa lagu yar dhuftaa waxaa la dareensiiyaa waxan ay sameynayaan in ay khalad tahay. haddaba Bashiir Jaaw in laga soo hadlo in comment laga soo bixiyo khalad meena ahayn oo macnaha wax uu sameeyay un baa loo sheegayo waxa lagu lahaa walaalow khalad baad sameysay ogow waxan inay khalad tahay. laakiin haddaba dadka comment ka soo bixiyay dadka ka soo hadlaan laba u kala qaadayna midna waa qof wax si fiican kugu sheegaya midna waa qof ku attack garaynaya haday attack tahay wuxuu taan waan ka soo horjeedaa oo hore baa loo dhahay bade diinteenu waa nasteexo diinteenu dagaal iyo oo maaha diinteenu waa nasteexo waa saamba saxsan saamba khaldan sidan waa sameyn jirtay normal waaye laakiin alxamdulillah hadda saan samee saamba fiican walaalkeeyo waxaas baa la nasteexo waa wax aad jeclaanaysid inaad dhageysatid waa lagu nasteexaynaya marka dagaal maaha marka qofkii si fiican wuxuu ku soo sheegay uu saxsanaa istii dadka aan war raacsanahay laakiin qofkii soo ataageeyay oo isdhahayd kaga faa'iideyso dadku iminka maalmahan buuqiis kaga faa'iideystaan oo dad baa lagu qabaa waxa lagu sugi inta aad qalad sameynaysid oo macnaha aad soo dhex fadhiisanaysid dhiiqada ugu weyn adduunka qofku ku neceb yahay codad buu ku qabaa kaligiis kama ka celin karo marka wuxuu sameynayaa xilliyada aad qaladka gashid buu eeganayaa marka dad noocaas jira marka qofka ibnu aadamka in la ataagereeyo anu khalad baan arkaa laakiin in wax loo sheego wax fiican baan arkaa. haddaba waxaan la hadlayaa dadka commentiga qora walaalayaalow dadka caanka waad dhibteen walaalayaalow dadka caanka waad ka oysiiseen walaalayaalow dadka caanka waad kala furteen marka walaalayaalow hal mid baa idin sheegayaa ibnu aadamku isku mid maaha dadka qaari way qalbi jilicsan yihiin dadka qaarna way qalbi adag yihiin aniga iyo imka wiil kale isku mid ma noqonano gabadh caana iyo gabadh kale oo caana isku mid ma noqonayaan dadka qaari walaalow hadalkan aad u soo qoraysid way dibsanayaan laakiin say waxa isleeyihiin adkee hadduu nin yahay nin adag iska dhig buu isleeyahay hadday gabadh tahay gabadh adag iska dhig bay isleedahay laakiin walaalayaalow commentigiinaasi dhibaato dadka u keenaa dadka qaari kama seexdaan wallahi kaftaniga ma aha dadka qaari commentiyada qaldaneed u soo qoraysiin kama seexdaan laguma garanayo Ronaldo kuu saaran Messi baa kuu saaran Iniesta kuu saaran kaamirad baa kuu saaran
commentigii aad isdhahdi soo qorno waa iska soo qoraysaa iminka wiilkan wallaahi waxaan hubaa boqolkiiba 99 commentigu inuu dhibaatada u keenay معناها ها وخلطمي استير waxaan leeyahay khalad weyn u sameeyay laakiin walaalayaal ibnu aadan baa leeyahay diintan lama kala xigo